gudoomiyaha xisbiga wadani laanta dalka Sweden Mr Maxamed Cabdilaahi Kaahine ayaa xafiis cusub oo xisbigu yeelanayo ka furay magaalada Linköping ee dalka Sweden. xisbiga wadani laanta Sweden oo muddooyinkii dambe ku hawlanaa dardargelinta xisbiga ayaa u magacaabay mudane Maxamed Ismaaciil Caabi Shiine inuu noqdo gudoomiyaha magaalada Linköping ee gobolka Östergötland ee dalka Sweden. kulankan waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Sweden Mr Maxamed Cabdilaahi Kaahine iyo gudoomiyaha cusub ee loo doortay magaalada Linköping Mr Shiine. waxaan maqlayay oo aan rabin runtii inaan ka hadlo laakiin se aanan dhaafi karaynin chananka guud ee ciidamada Somaliland Nuux oo dad iyagu reer Somaliland yiri iska taga. waxaan leeyahay chananka intii la oran lahaa waa lagu yiri balse waxaan anigu ku darayaa in aad adigu hawshaadii gabtay waxa maanta Somaliland ka dhacaya ama ha noqoto xuduudaha la soo xidhi waayay ama ha noqoto ciidamada tagay ama ha noqoto ciidamada shaqadoodii ka soo bixi waayay intaasuba waa gudasho la'aanta xilkii adiga lagu doortay in madaxweyne Muuse Biixi isagu uu yahay ninkii qarankan u dhaartay. Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel la salaaxo ka sarreysa ma jirto wax kasto oo qaranka ka dhacaya wax kasto oo maanta ka jira qarankeena ninka isagu ka mas'uulka tahayna in uu xal u keeno tahayna in uu isagu wax ka qabto waa madaxweyne Muuse Biixi. inta ka sokow waxaan wada ogsoonahay dhamaanteen bayna nahay dad ummadda u wada shaqeynaya oo qarankan u wada taagan oo raba in ay wadankan iyo sidii ay wadankeena wax uga qaban lahaayeen oo wadankeena xaaladda uu taagan yahay iyo meeshuu marayo sidii looga hadli lahaa ficlan iyo waliba aqliyanba iyo sidii loo oran lahaa in wax laga bedelo siyaabaha iyo systemka wadanka uu ku socdo. saan wada ogsoonahay dhamaanteen maanta waa la socotaan wadankii wuxuu marayaa meel xaaladii ay kala guur tahay. waxaan kaloo aan aad iyo aad halkan uga cambaaranaya hadalkii dhilada lahaa oo ku hadlay taliyihii dhammaa ee ahaa waliba taliyaha dhan ee ciidanka qaranka ninkii dhammaa ee madaxweynaha waa halkii waa haddamaanta madaxweyne wax noqdo waa ninkii geli lahaa booska wadanka waa aad baan uga xumaay. marka waxaan aad iyo aad u cabaarnaa hadaladii dhilada lahaa ee ka soo yeedhay iyo sida ay wadanku maanta xaaladiis u murugsan tahay ee aanay cidna dan ka lahayn cidna aanay marnaba u aabayee lahayn systemka ay ku wadaan oo waxba igama gelin waxaad moodaa anu waxaan afayeenka gobolka ee xisbiga wadani waxaad moodaa dadku inay kulmiye ku yihiin weerar anigu runtii kulmiye sidaa weeyba ayaan doonay inuu ahaado hadduu kulmiye wax kasta wanaajiyo meel ay inagu wax ka qabanaa ma jirayso anigu waxaan jecel inuu kulmiye sii waalo oo iska qastay intuu qasan karo jaaniskeen halkaas ku jira hadayna qoladana wadani ninkaad manacaaradka ku tayna talo lama daba taagnaada hadeed jeer tan kale ee xisbigana waxaan leeyahay waa loo baahan yahay xisbiga waxa loo baahan yahay marba marxalad baa la taagan yahay ina fahantaan oo fahanno kulligeen wada fahanno halka aynu maanta taaganahay dalkeena 30 sano 29 sanadood kadib halkaanu taaganahay maxaa inoo kordhay maxaa inoo soo baxay waxa inoo soo kordhay guryo dhaadheer inama dhistaan waxa inoo soo kordhay lacag badan inama iska qaateen oo meel dhigtaan. horta waa marka ugu horeysay xisbiyada waxaynu u samaysanay in aynu kaga baxno heerkii aynu hore u taagnayn ee qabiiliga ahaa oo aynan qabiilo hadda wax ku maamulina ideology aynu wax isku maamulo sidaas ayaynu xisbiyada u samaysanay. waxaan kaloon halkan aan fariin uga dirayaa xukuumadda uu maanta hogaamiye Muuse Biixi Cabdi waxaan u dirayaa fariin in uu dalku maanta marayo halkii ugu khatarsaneyd 20 sano 30 sano ee Somaliland jirtay maanta maalin looga cabsi badan yahay ma jirto. madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa in uu dalka hogaamiyo oo uu ku hogaamiyo cadaalad iyo sinaan. waxaan farayaa please ina ka xumaataan arrimaha noocaas oo kala oo idaan yeelin oo idin ku hogaamisaan dadkeena iyo dalkeena aad wacyigelin haday tahay wax kasta oo telefoon isku hadlay haday tahay inaydaan ka yeelin arrimaha ka socda Somaliland oo raali way hadaynu imaka arrintaas oo kala saxano de wadani ba isagu ku hogaaminaya wadani ma ku hogaaminaya waa ogtiin waynu ka dheregsanaan odayaashin reer Somaliland leeyahay waa madax dhaqameedaya
barkhad cabdilaahi maxamed home cable TV magaalada Linköping ee wadanka Sweden.